dadkani oo tir ahaan gaarayay ilaa 150 qoys ayaa maanta waxay ka faa'iideysteen deeq isugu jirta bur, bariis, saliid, sokor, timir. dadkani maanta hay'adda Relief International Foundation deeqdan u qaybisay ayaa ahaa dad danyar kuwa oo ku noolaa xaafadda Siliga degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho. waxaana ugu horeyn madasha deeqda lagu qaybinaya hadallo mahadcelin ka soo jeediyay dadka la gaarsiiyay deeqdani kuwa indhoolayaal ah waxayna dawladda ka codsaday in la soo caawiyo. walaalihii waa mahadsantihiin boqolkiiba waa mahadsantihiin intiina soo xasuusatay maanta unka taagnahay iirtii walaha mahadle maanta 20 ana ii 68 una taagnahay farax weyn aan naga muujiyay wixii bur ay wixii bariis ay wixii sinyeer ay wixii busta ay nala siimaan abaartii shalay anaga qabnay dhibkii shalay anaga qabnay maanta anaga halna waa ka duwintahay eedaan u faraxsanahay waxaan nahaa aruurta indhooleyaalka oo naafada indhooleyaalka salka Ameerikaanka wada degan oo intii ogolna soo xasuusad walaalahayna ay garabna aheen ama shakiiti mama miri ilaahay khayr ha sii aadan horta uga mahad celinaynaa raashinkan shanta nooc ka kooban iyo sansiyeeriga dhanka kalena ku beertan oo ah oo hadda maarad aan la igu tijaabiyay runtii waa hawl aad u qiimo badan oo aan uga mahad celinayno walaalahayna maaragtay arintaas na soo xasuustay runtii ma ahan markii koobaad markii saddexaad ma ay aha in badan ay maaragtay hawshaas ay noo qabteen waana ku mahadsan yihiin inkastoo maaragtay bariyahan aan tabno weyno lahayn maaragtay waa sidee walaalihiin maxaa helay laakiin inay shaqada uun sii wadeen noo maqnaayeen ayaan maanta maaragtay nooga cadaatay anagoo sidii hore ka bedelno maanta meeshaan aan degannahay kaamkan indhoolayaasha uu yahay kaam dadka aragga la ay leeyihiin oo macnaha maaragtay ay degan yihiin awal waxay ahayd inay deganaayeen meel lagu tabarucay oo mar alaala marka loo baahdana laga raraayay haddana laga soo raray inta ayaa fursad u ahayd inta laga imaado maaragtay dawladda Ameerikaanka oo inta leh ilaa ay ka timaado wax ka sokeeyo inaan sii deganaan ayaan jecelnahay haddii Allah uusan maaragtay waxaan kaloo raba inaan ku daro maaragtay baaq ugu jeedsho dadka Ilaahay mas'uuliyadda ugu dhiibay ee xukuumadda dadkan waa dadka mas'uulka ka dhahdeen waxaana rasuulkeenu yiri kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun an ra'iyati waxaan idinka codsanaynaa haddaad tihiin mas'uuliyiintii xukuumadda in aad dadkan meel loogu talagalay oo guryaha dadka barakacayaasha oo loo sameeyay oo loo dhisoon hadda aan ognahay la diyaariyay ximinta ay ku leeyihiin hal la siiyo xildhibaan Camir Shikeeti oo loo wakiishay ayaa u qaybiyay deeqdan ilaa 150 qoys oo isugu jira rag iyo haween kuwaasi oo ah indhoolayaal ku jiray kaam ku yaala xaafadda Siliga ee degmadaasi waxaan aad uga arwaxsanahay in aan joogo kaamka indhoolayaasha saaxiibadeedii aan u imid Ramadaan ahaan ugu imid xogaa wax yarna aan keen oo ka wado International Relief Foundation London fadhiso dad Soomaali ah oo mar la arka kaamkan gacanta ku haya kaamkii markii ugu horreeyay waxaan keenayo kaamkan 4 sano ayaan imaadaa wax badan aan keenay dugsiyaan ka dhisnay iyo bacdaan meeshan saaran waxyaalo badan aan qaban insha Allah ilaahana qabto waxaas anagoo ilaahna u garabsiin Maxamed Ibrahim Gabo Royal TV Muqdisho.